Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow qaybtii labaad ee sheekada basaaskii laba kaadhlaha ahaa ee lagu magacaabi jiray Oleg Kordovsky. Qaybtii ka horreysay waxay noogu joogtay isaga oo Oleg siiyey xog fara badan MI6. Xogtaasi oo u suurtagelisay inay ogaadaan Sofiyeetku inaanu dagaal toos ah oo nukliyeer ah uun la gelinin reer galbeedka, balse uu ka cabsi qabo keliya in reer galbeedka iyo Maraykanku ay la galaan dagaal nukliyeer. Qaybtan waxay noogu bilaabmaysaa goorma la tuhmay oo laga shakiyey Oleg. Sanadihii dambe Oleg wuxuu noqday nin la tuhunsan yahay. Sirdoonka Sofiyeetku waxay ogaadeen in xog muhiim ah ay baxayso. Mid ka mid ah basaasiintii CIA-da ahayd ee u shaqayn jiray KGB-da oo lagu magacaabi jiray Aldrich Ames ayaa markii dambe u sheegay KGB-da in ninka xogta bixinaya uu yahay sarkaal lagu kalsoon yahay oo ku sugan London. Markii uu Oleg Moscow ku soo noqday sanadii 1985, waxa uu dareemay halis weyn inay jirto oo wax badan ay khaldan yihiin. Waxa uu arkay baabuur daba socota baabuurkiisa, telefoonadiisa oo la dhageysanayo, iyo wajiyo cusub oo meel walba ka soo muuqda. Waxa uu ogaaday inuu saacad walba noloshiisu khatar ku jirto. Bal waxaanu isla eegaynaa imikana operation-kii cajiibka ahaa ee ay ku soo badbaadiyeen sirdoonka MI6 ee uu u shaqayn jiray basaaskan laba kaadhlaha. Operation-kii ay ku soo badbaadiyeen oo lagu magacaabi jiray operation-kii Pimlico. Markii MI6 ay ogaatay in basaaskoogii laba kaadhlaha uu halis ku jiro, waxa ay bilaabeen qorshe aad u khatar badan oo lagu badbaadinayo basaaskaas. Howlgalkani waxa uu ahaa Operation Pimlico, qorshe lagu soo saarayay Oleg oo laga soo saarayay Moscow. Qorshuhu waxa uu ahaa sidan: ugu horreyn waxaa Britain ka tegaya sarkaal diblomaasiya isagoo Moscow tegaya, isagoo wata gaadhiga safaaradda. Gaadhigaas waxaa lagu dhex qarin doonaa Oleg isagoo ku dhuumanaya meel yar amba qayb yar oo gaadhiga ka mid ah oo qof ku dhex dhici karo oo lagu qarinayo. Waxaa la marin doonaa xuduudda Sofiyeetka iyadoo lagu marmarsiiyoon doono inuu gaadhigu sido badeecad diblomaasiyadeed oo aan la baari karin. Howlgalkii waa lagu guuleystay. Gaadhigii baa la keenay, safiirkii ama diblomaasiga Moscow ayuu yimiday, gaadhigii safaaraddu ka haystay. Gaadhigii waxaa lagu dhex qariyay Oleg waxaa laga soo saaray Moscow isagoo nool, wuxuuna gaadhay xuduudda Finland, kadibna London ayaa la geeyay. Markii uu London tegay, wuxuu la kulmay madaxda ugu sarreysa MI6 oo si qarsoodi u siiyey hooy iyo ilaalin buuxda. Laakiin waxa uu mar walba ku noolaa cabsida in KGB-du ay meel walba kaga daba iman doonto. Markii la ogaaday waxa uu sameeyey, Oleg waxaa loo aqoonsaday nin geesi ah oo reer galbeedka iyo MI6 u shaqaynayay waxay u aqoonsadeen inuu geesi qaran yahay oo dunida uu ka badbaadiyay dagaal saddexaad oo nukliyeer inay galaan. Waxa uu qoray bug lagu magacaabo Next Stop Execution waxa la yiraahdo oo ku faahfaahiyay noloshiisii laba wajiilaha ahayd. Waxa uu sheegay inuu weligiis dareemayay cabsi, balse uu rumaysnaa inuu sameynayo wax sax ah, inuu ka hortegayo nidaam cadaalad darro ku dhisan. Dowladda Britain waxay si qarsoodi u abaalmarisay Oleg, wuxuuna noqday nin si weyn looga dhex ixtiraamo gudaha MI6 iyo dhammaan sirdoonnada reer galbeedka. Laakiin dhinaca kale, midowgii Sofiyeet waxa uu arkayay inuu khaa'in waddan yahay. Waxaa lagu xukumay dil daldalaada isagoo maqan, waxaana laga qaaday dhalashadii Sofiyeetka. Ugu dambeyntii, Oleg Kordovsky waxa uu ahaa nin halis ku ciyaarayay si uu runta u badbaadiyo. Waxa uu ahaa qof dagaal la galay nidaam dhan oo halistiisa iyo awooddiisa wata, isagoo adeegsanaya maskax, geesinimo iyo khiyaano. Sheekadiisu waxay tusaale u tahay sida hal qof uu u bedeli karo jihada taariikhda caalamka. Intaan mawduuc la mid ku kulmi doono, nabaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheekadii Olegna halkaas inoogu egtahay.